السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan baran doonaa saliid nooc kobcinayso sunniyaha iyo baalaha indhaha. saliidan waxay ka kooban tahay laba qaybood. saliidda ugu horeysa oo aan u baahannahay waxay tahay castor oil. tan labaad waxay tahay vitamin E oil. waxaa kaloo u baahnaan doonaa qaandooyinkan waxa lagu cabiro tan ay ku qoran tahay hal. waxaan ku shubanaynaa halkan hal qaando, labo, saddex. markaad saddex qaando castor oil isticmaasho waxaad ku daraysaa hal qaando oo saliidda fitamiinka E-ga ah. haddii aan ka hadlo waxyaabo ama faa'iidooyinka ay leeyihiin saliidan, waxay ka kooban tahay, koley waxaa halkan kusoo wada sheegi kara ma ahan, laakiinse sunniyaha ayay ku kobcinaysaa ama kuu soo bixinaysaa iyadoo maqaarka jirka haddana nafaqaynayso. sidoo kaleento indhaha baalahooda way ku nafaqaynaysaa, qoyaanay siinay iyadoo maqaarka wax badan u qabanayso. mar waliba waxaa fiican sidaan jirkeena uga taxadirno iyo wejigeena in aanan la iloobin sunniyaha iyo indhaha baalahooda. waa kana anigoo ku shubaayo caagadihii loogu tirigalay. haddii aad saliinga haysato saliingada isticmaalaysaa, haddii aadan haysanin dhalasaan camal ama dublad sidii kuu fudud. waa kana cabirkooda, kaba soo qabo cabirkii aan ku siiyey waxay kuu noqdeen, hadday u badato 4 dhalo ama 3 dhalo kuu noqotay. cabirkaas uun baa raacaysaa. maxaa kaleento rabi inaan idiin sheego, haddii aadan jeclayn vitamin E oilka ama castor oilka, saliido kaloo isticmaali kartidaa jirto. waxaan ku xirayaa afkan yaryaroo wataa, afkii ayaan hadda isticmaalayaa. saliidaha kale waxay ka kooban yihiin saliidda la dhaho argan oil, saliidda la dhaho jojoba oil, iyo saliidda la dhaho aloe vera oil iyo castor oilka. intaasba waad ka samaysan kartaa, qiyaas ayaa u baahan tahay. soo hadda waxaa gelinaynaa shalladii yaroo kula shallayn lahayd markaad sunniyaha u isticmaalayso ama aada u isticmaalayso. bal aan isla aragno. hadda waan geliyey, ma u jeedaan aaduu igu adag yahay. way fiican tahay qaladkan camal markuu dhaco in lastusiyo. sababta maxaa yeelay saliiddii ayaan aada u badiyey. saliidda ayaan wax yar ka dhimayaa, kadibna way xirmi doontaa. marka waan furaa hadda. waa kaas, ma ujeediin bahashaan yar qasab waa inaad ku xirto, haddii kale hadhow shallada markaa saliidda soo qaadayso shalladiyo aad u qoyaan badan u lahaa soo qaaday. laakiin bahashaan markaa saas u isticmaalayso shalladii saliid way wadataa, haddana kama daadaadanayso saliiddii. marka aniga aadaan u buubuuxiyey. markaad samaysan doontaan hadduu ilaahay yiraahdo aad yaa loo buuxinin. waa ujeedin tanna way xirmi la-dahay sidii oo kalaa dhacday. waa kuwaana. hadda marka waxaan rabaa inaan sameeyo, waan soo tirtiraa. markaan soo tirtiro waan dhaqaa, waan soo tirtiraa, waan soo nadiifinaa, kadibna waa isla socon doonaa.
waa kaasa hadda waxaan ku dhagsanayaa bacyihii. waxaan rajaynayaa inaad si fiican u arki doontaan. bacahan waxay u eg yihiin sidaan. waxaa ku qoran eyelash and eyebrow growth serum ku qoran. waxaa rajaynayaa inaad ka heli doontaan hadduu ilaahay yiraahdo. saliidan aniga waxaan deganahay North America, waxaana la gadaa halkii saliid $8 sida tii horeba idinku sheegay. waadna ka ganacsan kartaa, waxa u samaysan kartaa walaalaha, waxa u samaysan kartaa hooyada, waxa u samaysan kartaa saaxiibada. hadiyad waa ugu geyn kartaa xilliyada munaasabada